أنا فكر كي هذا كدي تذكر لقى صرافة مجال اللاسعانات وفكر هذا وغلطان واي وحنا كسويها معهن حروية للصومالي ده طبعا ويا لما معهن وواحد عصب مركا فكر كي وحنا من سنة هاي أرنتاس معهن أرن صومالي ولا دنتهاي فأنا صمت عصب ومدة صوماليات وحنا رباه دي لا يوصله إنه ومدة كنا مجال اللاسعانات inay ma tirada ka dhidiyaan oo ay fikirkooda soo bandhigtaan oo ummadda muslimiinta ee walaalahooda ee Soomaaliyeed ee dhaqanka islaamka ka reeban sida loola dhaqmay ee aan qaarkood ka arkayna baraha bulshada ayagoo ooyay oo ilmahoodii meel ku sheegin waxaan rabnaa inay aragtidooda ka dhiibtaan ay ismuujiyaan Soomaalinimada wax ku cusub waaye dhaqan lagu soo ma tirada aan hore u naqaan ma ahan waxaan rajeeyaa hadii la meeysan dadka walaalaha in ma tirada inta hartana si fiican loola dhaqmo inta ma tirada hadda la soo barakiciyana xoolahoodii iyo ma tirada hantidooda meel lagu soo sheego waxaan rabaa si Soomaalinimo in dadkaas isxaan lagu sameeyo dadka ay soo gaareen walaalahooda inay isxaan sameeyaan rajaa hadii la yiraahdo arintan waa arin ceeb ah arin aan insaaniyad ogoleen arin aan islaamnimada ogoleen arin aan Soomaalinimada ogoleen waxaan soo cusboonaaday arrimo ka dhacay Somaliland oo xuquuqda Soomaali loo geysanayo wadda Soomaaliyeed dalkasta joogaan way ka caroodeen haddaan nahay Muqdisho arintaas waxa leenahay arin xun weeye dhaqan xun weeye madaxweynihii wuxuu ku dhawaaqay Muuse Bixi waa maqalnay dadka Soomaaliyeed ayagoo hantidoodii guryahoodii laga soo dadguray xoog lagu soo kaxiyay waa waxaan hore loo arag Soomaali dhexdeedii waa arin aan la yaabanahay weeye marka Soomaalida waxbay ku dhex abuuraysaa wadadii waxbay ku dhex abuuraysaa qabaa'il hadda loo laabtay noqonaysaa marka dadka waa isla dhashaan marka abti adeer baa isku yahay isir baa isku yahay marka dadka intaas loo galo ma ahayn qalad weeye dadkii la soo jiido la soo duubo ninka Soomaaliga muslim weeye xoriyad buu leeyahay marka xoriyadiisa lama siinin askar baa lagu dalbay dadkii waa la soo jiiday arintan waa arin ceeb ah arin aan insaaniyad ogoleen arin aan islaamnimada ogoleen arin aan Soomaalinimada ogoleen waxa ay leeyahay arintan oo hadda jirto oo taagan macnaheeda oo dhax socoto wadanka oo dhan Soomaali waa mid ku cusub marka waxa leeyahay Soomaali meel walba ay joogto waxa jeclahay mar walba inay israacdo arintan waa arin ceeb ah arin aan insaaniyad ogoleen arin aan islaamnimada ogoleen arin aan Soomaalinimada ogoleen waxay ka dhacay laascaanood ee ahaa dad Soomaaliyeed in la soo tarxiilo oo lagu sheego ajnabi aniga aragtayda aad baan uga xumahay dad Soomaaliyeed oo gobol Soomaaliyeed in la yiraahdo in saa loo gano waa ka xumahay hantidooda in maaragtay laga reebtana waa ka xumahay in nidaamka saasa Soomaaliya uu ku bilowdana aadaan uga xumahay waxa weeye ma ahayn inta halka in la gaarsiiyo qofkii dambila waxa weeye waxa la geenayaa maxkamadda iyo booliiska qabanaya maxkamadda loo gudbinaya baarisu maraya baarista haddii dambi lagu helo hadda waxay noqonaysaa markaas waa issue gooniyo weeye haddii dambi lahayna waa muwaadin Soomaali oo la sii daynaya laakiin in la isqafaalo oo la istargadgareeyo oo la yiraahdo koonfur galbeed ku dhashay ama xamar uu ka soo jeeda oo laasacana laga tarxiilo aad iyo aad baan uga xunnahay arrintaasna waxaan leenahay yaan loo laaban dib ha la isugu laabto ummadda Soomaaliyeed waa qaxooti 30 sano ay qaxooti tahay Soomaaliya ma kala maaranto waa isku baahan tahay waa isku af waa isku dhaqan waa isku diin waxaas cadaawadana lama gaarin Itoobiyaanka laasacana waa jooga maxaa loo qabo waay loo qabo ayaga ajnabiye dadkii maaragtay xamar iyo baydhabo ka soo jeeday ayaa waxa ma la yiri waa ka shaysan Itoobiyaan arintan waa arin ceeb ah arin aan insaaniyad ogoleen arin aan islaamnimada ogoleen arin aan Soomaalinimada ogoleen waxaas marka arin fiican maahan waa arin laga xumaado ummadda Soomaaliyeedna maanta waxay hadal haysaa tarxiilka lagu sameeyo dadka Soomaaliyeed ka maaragtay laascano laga soo ceyriyay oo caddameelayaasha si xoolo lagu soo qaado arintan waa arin ceeb ah arin aan insaaniyad ogoleen arin aan islaamnimada ogoleen arin aan Soomaalinimada ogoleen ayaa maanta yaa daylayna waxa weeye bagi hore ku arintaas ku qoran waxaan leenahay marka yaan loo laaban laga fiirsado waxaan kala codsanaynaa magdhow in laga bixiyo magdhow waa qaar la dirjiraa la yiraahdo ma ana joogin dirjilaa dhacay hantidoodii maaragtay laga soo kaxeeyay maaragtay waa la xumeeyay waa la gumeeyay ciila la baday sidii maaragtay dal ajnabi inay joogaan oo kale waxaan soo jeedinaynaa magdhow in laga bixiyo koonfur galbeed waxay ku maahmaahan abaar bahaase eeba daran